waxaa maanta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar. wafdiga wasiirka waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur Siidi ku-xigeenadiisa Senator Xuseen Cali Xaaji. waxaa magaalada Marka ku soo dhaweeyay maamulka degmada uu horkacayo gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow iyo ku-xigeenadiisa. inta kadib wafdiga wasiirka ayaa loo soo galbiyay xarunta maamulka degmada Marka waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow. سعد وزير وان كاغا محد علينا سفرka kuleel oo soo gasheen adiga iyo wafdiga hogaaminaysay ayadoo ay tahay soonqaad haddana xilli kuleel oo aad u dhib badan ayaad maanta maxaa la yiraahdaa muxuu ahay safar nagu soo gasheen aad ayaan kaga mahadnaqaynaa waxa idin leenahay waad ku mahadsantihiin dawladnimadu sidii ahayd waaye hakad ma gasho shaqada dawladdu mar walba oo loo baahdo mudane gudoomiye ku soo dhawo wasiir ku soo dhawo mar labaad soo laabashadaadii labaad aad nagu soo laabatay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Marka farxad ay noo tahay mar labaad inaad nagala soo qayb gasho haddana shaqooyinkii isla markaa ay dawladda idinkugu soo idmatay aad nagu soo gaarteen mudane wasiir waxaan joognaa degmada Marka ilaahay waa ku mahadsan wax dhibaato ah ma jiro shacabka degmada amniga degmada hay'adaha amniga degmada iyo dhammaan maamulka degmada intaba dhexdoodu shaqo wanaag ayaa ka jirta. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa kaga mahad celiyay maamulka degmada Marka bulshada qaybaheeda kala duwan sida weyn ay u soo dhaweeyeen wafdiga uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. معالي الوزير فليتفضل مشكورا هذا اللي بنان ابينا tahay anaga waxa sharaf weyn oo amaanteen gool sholos Ramadaankii koow u yahay soonkii koow ah in nala kuusato nagula afurtid maxaan ku sharaf weyn inay gool sholos wasiirka loo sabciyo horta ma sha Allah marka magaalada Marka oo elboor lahayn oo jid la mar lahayn oo laan loo kadhe maamulkii gobolka soo guuray soo degay oo meel ugu soconin marka horta waxa waaye معالي الوزير شرف وين inoo tahay waxaan ku faraxsanahay wasiirkeeni arrimaha gudaha in maanta xaaladdeena dad shaqo diyaar u ah dhalinyarada oo gudoomiye Waafow weyn degmada Marka oo u jeeda saaka say u istaagayo sooman runtii waxa ka muuqda baabuurta intay bacad naga gashay jidadkii aad soo arkay qaal in la riixay isku rugiyaashi marka waxa leenahay معالي الوزير ku soo dhaw gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Abuukar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maalmaha soo socda magaalada Marka ay ku sugnaan doonaan isla markaana kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka. Ramadaan Kariim waa farxad weyn inoo tahay xaqiiqdii maanta inaan soo gaarno Marka xarunta gobolka Shabeellaha Hoose uu mahadsan yahay saaxiibkeena wasiir gudoomiye Waafow iyadoo Ramadaan lagu jiro maanta Ramadaan koow yahay xaqiiqdii ilaa iyo 9 saac meelaha 8 saac oo taagna adiga shacabkaaga iyo maamulkaaga si guud ahaan waan kaaga mahad celinaynaa xaqiiqdii taas waxaan leenahay ku mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibkii gudoomiye Siidi iyo tiimkiisa xaqiiqdii iyagana safarkan isku helinay aan rajayn doono insha Allah taala hadda kadib inay soo dhaweynta ka mid noqon doonaan markii degmada la imaado aan soo dhaweynay iyagana waxaan leenahay waa mahadsan tahay xaqiiqdii waxaan maraynaa soonkiis markuu dhamaaday iyadoo ciidihii lagu jiraan nimid meeshan haddana soonka meeshan way ku bilowday marka waa xaqiiqdii waxa taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay noo leedahay degmada Marka iyo gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan ugu horeyn waxaan rabaa intaan loobin inaan idin soo gudbiyo salaan aan idin kaga siiday madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdiaziz Xasan Maxamed Laftagareen xalay aan ka wada hadlaynay oo safarkan iyo taladiisi iyo hogaamintiisa aan ku soconay ay shacabkii reer Marka iyo gobolka Shabeellaha Hoose iyo xaruntii gobolka salaantaas iga gaarsiiyay Ramadaan Kariimta iyo mataqaana inaan soo gaarsiiyo sida gudoomiyaha uu sheegay waxay noqon doontaa maalmo shaqo taana waxay macna la tahay dawladda Koonfur Galbeed inay diyaar u tahay xilli walba inay shacabkeeda u shaqeyso ama Ramadaan ha noqoto ama xilli kale ha noqoto xilli kasto la taagan yahay waxaan diyaar u nahay inaan shacabkeena meelaha ay joogaan deegaanadooda gobolada iyo degmooyinka ugu shaqeynaan uga tagno taasna insha Allah mar walba diyaar ayaan u noqon doonaa
idinkana dawladnimada iyo wanaagga aad ka shaqayseen oo xaqiiqdii ka muuqata marka maanta waxaan rajaynaynaa insha Allah inay tusaale u noqon doonto degmooyinka kale gobolka Shabeellaha Hoose iyadana insha Allah. gabagabadii waxaa warbaahinta la hadlay senator Xuseen Cali Xaaji oo kamid ah golaha aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya qaybna ka ah wafdiga ballaaran ee maanta soo gaaray magaalada Marka. waxa uu kaga mahad celiyay maamulka degmada sida diiran oo ay ugu soo dhaweeyeen gudaha magaalada Marka. kamid ahaado maanta ugu horeysay Ramadaan markii inay ugu dhalatay aad ugu faraxsanaa runtii sababtoo ah magaalada Marka waxa waay magaalo dadka Ramadaanka ay soo dalxiis tagaan oo imaadaan oo magaalo degan oo jawi degan oo soonka oo aad dadka ay ugu cibaadaystaan waa aad ugu faraxsanahay waxa aad ugu mahad celinaa saaxiibkayga gudoomiyaha degmada Marka runtii magaalada oo maalin maanta si dambe dhowr jeer magaalada imaanay aniga wasiirka kale laba jeer imaanay dhowr jeer kalena aniga laba jeer kalena waa ka dambeeyay magaalada maalin maanta si dambe waa si fiicnaan u saamacnaa aad ugu faraxsanahay taasna waxa mahad kule gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan shacabka waa idinkaga mahad celinaa inay ilaalstaan amnigiina iyo walaaltimidiina iyo degnaashada magaalada mar walba wax ugu weyn taas waa horta amni hadii la helo wax kasto waa la helaa aniga mar walba waxa diyaar u nahay qoonsaaraan nahay mar walba waxa diyaar u nahay inaa idin imaano wax walba u baahataan ina garab idinku siinaa mar walba diyaar u nahay iyadoo maanta Ramadaan tahay qof walba uu jeclaa inuu gurigiis jiifo qof walba maanta uu nasto uu jeclaa waxa magaalada aan marka anaga u imaanaa waxay tahay shaqo waana ka shaqeyn doonaa dhammaan koonfur galbeed khaasatan degmadan iyo gobolka Shabeellaha Hoose aad iyo aad idinkaga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad waa isla joognaa maalmahan insha Allah Ilaahay haduu diidin. Aweys Muumin Xasan Aweys okay warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Shabeellaha Hoose magaalada Marka.